barnaamijkeenan waxaynu ku martigelinaynaa doctor cabdibaari adwaan oo ah qoraa caalamiga oo carbeed oo ku nool dalka Britain si weyn uga faalooda dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe waxaana uu faalo dheer oo muhiim ka bixinaya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dalalka carabta qaarkood iyo wadanka Qatar. mawduuca ugu muhiimsan uguna khatarsan aynu ka hadlaynaa waa khilaafka soo kordhaya ee u dhaxeeya dalalka Qatar oo dhinaca iyo Masar, Sacuudiga, Bahrain iyo Imaaraadka oo dhinaca kale. maalin kasta wax cusub ayaa soo kordhaya. shalay ayay markii ay Sacuudigu soo saareen iyadoo xulafadeedu baaq ay 59 qof iyo hay'adood ku calaamadinayaan argagixisada. laynka ugu horeeya waxaa ku jira Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi. laakiin waxaynu aragnaa in dhaqdhaqaaqa Xamaas iyo Al-Jihaad aanay ku jirin waraaqdaasi ama liiskaasi. ma hubno berri maanta iyo saa dambe sida ay arrintaasi wuxuu uga dhici doona. waxaase aynu ognahay waa xaaladda adag ee dhanka dhaqaalaha ee dalka Qatar ku soo kordhaya kadib markii la xiray eerboodada hawada iyo dhulka dhammaan xuduudaha ay la leedahay wadamada ay isqabteen. waxaana aynu ognahay in shucuubtii u dhalatay dalka Qatar ee ku sugnay dalalka khaliijka la saaray inay muddo kooban kaga baxaan wadamada haddii kale la saari doono ganaax lacageed oo fara badan. taasoo macnaheedu tahay in qof kasta oo waqtigaa kaga bixi kari waaya wadamada khaliijku uu bixin doono adduun lacageed oo gaaraya $2 milyan haddii kale uu xabsi mutaysan doono. taasi waa waxaa hadda dhacaya. anigu shakhsi ahaan waxaan arkaa in golaha guud ee wadamada iskaashiga khaliijka carabta oo xilligan ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga in gudoomiyahoodu uu soo saaro go'aan dalka Qatar ka saaraya golaha ay ku midaysan yihiin wadamada khaliijka carabta. runtii waxaa halkaa ka muuqdaa waa go'aan xumo ay sameeyeen dalalka seeftii colaadda u qaatay dalka Qatar. waxayna u qaateen in ay Qatar isdhiibi doonto oo ay calanka taagi doonto kadib marka ay saaraan cunaqabataynta iyo culayskaas siyaasadeed. in dowladda Qatar oo haysata quwad nimcaysan oo weyn oo ay ka mid tahay balaayiin dollar oo keyd u ah xidhiidh weynna la leh wadamada caalamka sida Turkiga iyo Iiraan oo kale wax raad oo weyni kuma samayn karayo cunaqabataynta ay saareen mana gaarsiin karto meel ay isdhibto. شاهد وجه أمير الكويت أثناء لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. عد كستو أركتا وجه أمير الكويت مركي ولكل ميجي بقر كالسعودي بقر سلمان بن عبد العزيز. أو شاهد وجهه عندما التقى بالشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد. أبوه مركي ولكل ميجي الشيخ محمد بن راشد أما محمد بن زايد إمارات أو كلكم ميجي. ثم بعد ذلك عندما التقى بأمير قطر كان وجهه. إيه مركي ولكل ميجي. أميركا قدر نفته way caday watigiisa oo waxa ka muuqday in uu si rasmi ah ugu fashilmay dhexdhexaadintii uu wadamada ka dhaxooday. dhexdhexaadintii la waday waa ay dhacday liiskii argagixisada ee la soo saarayna waxa uu noqday mid aan soconaynin.
وضع عليها 59 اسما. waxaana liiskaas ay ku qoran yihiin 59 magac oo hay'ado ama shakhsiyaad. الحصار الاقتصادي يزداد شراسة يوما بعد يوم. cunaqabatayntii dhanka dhaqaalaha gadar la saarana waa mid soo kordhaysa maalinba taagta. مجلس التعاون الخليجي انقسم إلى قسمين. golihii khaliijka carabtuna waxa uu muuqdaa inuu yahay mid laba qaybood u kala jabay. قطر والكويت وسلطنة عمان في ناحية. iyadoo gadar iyo kuwait iyo saldanada cumaan ay dhinac isu raaceen. والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في ناحية أخرى. sacuudiga imaaraadka iyo baxraynna ay dhanka kale isu raaceen. لا نعرف ماذا سيحدث. ma ogin waxa dhici doona. arrintu ma tahay mid isa soo tari doonta ilaa ay ka gaadho iska horimaad ciidan amaba adeegsi diyaarado iyo duqayn xagga cirka oo lagu sameeyo gadar. ma hubna taa, laakiin waxaanu iska fogeynaynaa ma jirto. الصراع قبلي وليس له علاقة بالإرهاب على الإطلاق. waa siraac ama iska horimaad qabyaaladaysan oo aan wax xidhiidha la lahayn argagixisada caalamka iyo ka hortegeeda. المملكة العربية السعودية تريد أن تكون شيخ القبيلة. boqortooyada sacuudigu waxay danaynaysaa inay noqoto caaqilkii qabiilooyinka khaliijka. تريد أن تكون الزعيم المطلقة لمجلس waxay doonaysaa sacuudigu inay noqdaan hogaamiyaha aan laga daba hadlin التعاون الخليجي ولكل الدول ee الخليجية. golaha khaliijka carabta. يريد أن يشق عصا الطاعة على هذه الزعامة القبلية سيواجه الحصار وربما. mid kasta oo wadamada khaliijka ka mid ah oo doonaya inuu ka hor yimaado sacuudiguna waxa ay sacuudigu u arkaan in la cunaqabateeyo أيضا القتل أو العزل الكامل لا نعرف. amaba in la go'doomiyo oo si dhammaystiran loo go'doomiyo. khilaafkuna waa mid u muuqda iska horimaad qabiil oo keliya. tusaale ahaan markaynu ka tusaale qaadano bayaankii ay soo saareen qoyska aala sheekh مؤسس المذهب الوهابي هذا ee madhabta wahaabiga maxamed aala sheekh آل تميم أو أسرة آل ثاني وطالبت أمير قطر بأن لا يكرر مقولته بأن الشيخ. bayaanka waxaa lagaga dabaday ameerika gadar inaanay sheeganin in maxamed cabdilwahaab uu ahaa awowgood islamarkaana hoos looga dhigo oo laga baabiyo magaca maxamed cabdilwahaab. وأن المشكلة والله قبل. dhibaatadan iyo isku horimaadkuna waa mid qaab qabiil ku samaysan. ma aha waxaanan u arkaa in argagixisada la sheegaya ay tahay daah wax lagu qaranayo oo keliya. غطاء. الكل يدعم الإرهاب. dhammaan wadamadaasi waxay taageeraan argagixisada. sacuudi hadday tahay hadday gadar tahay على مدى 6 waayo wadamada dhaqaalaha u dirayay malaayiinka doolar dalka suuriya. إلى سوريا. من الذي أرسلها؟ الإرهاب ليس هو الأساس. الصراع القبلي والزعامة القبلية هي الأساس. hogaaminta qabaliga ee khaliijka carabta ayaa runtii saldhig u ah khilaafka ka dilaacay dalalka khaliijka dhexdooda. ربما اقدام الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني أو ما يسمى بالأمير الوالد عندما حاول أن يؤسس زعامة لقبيلة تميم وهي قبيلة كبرى تمتد في الشام وفي العراق وفي سوريا waxaana jirtay in sheekh xamed bin tani oo ah odayga dhalay amiirka dalka gadar uu hore isugu dayay inuu u asaaso gole ay leeyihiin qabiilada al-tamiimi oo ah qabiilo ballaadhan oo ku nool dalalka khaliijka carabta suuriya iyo meelo kale oo bariga dhexe. في فلسطين وفي كل الأنحاء عندما أراد أن يتزعم هذه القبيلة markii uu doonayay sheekhaasi inuu hogaamiyo qabiilada صالح بين شقيها أو فرعيها السني والشيعي وهذا كان إنجازا كبيرا. oo uu mideeyo dhinacyadeeda shiicada iyo sunniga kala aaminsan أساس الخلاف ومن يقول غير ذلك ayaa suuragala in sacuudigu ay yihiin kuwa taa ka cadhooday maadaama sacuudigu ay doonayaan mar walba inay noqdaan kuwa hogaamiya khaliijka. الزعامة ربما يكون هو الذي فجر هذه الأزمة. على أي حال يعني نحن نتحدث هنا كمحللين وليس كطرف في هذا الصراع. innagu halkan waxaynu uga hadlaynaa inaynu ka faaloono waxa socda laakiin ma nihin kuwo labada dhinac mid taageeraya. على الإطلاق المشكلة الآن تسير بشكل متسارع نحو المواجهة العسكرية. mushkiladuna hadda waxay u sii socotaa xagga sare iyadoo ku sii socotaa in iska horimaad militari la isugu yimaado. فشل الحصار يعني اتخاذ قرارات أخرى. haddii cunaqabatayntan gadar la saaray ay fashilantaan macnaheedu waxa weeye
in tallaabo kale looga gudbo sidii culays loo saari lahaa Qatar. ربما القرار الوشيك هو تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي. go'aanka la filayo inuu soo baxaana waa in Qatar laga saaro xubintii ay ku lahayd golaha iskaashiga Khaliijka Carabta. ربما المسألة الثانية هي تغيير النظام. nidaamka labaad ee loo gudi karaana waa sidii loo bedeli lahaa qoyska xukuma dalka Qatar. سمعنا أن دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات يقول نحن لا نريد تغيير نظام وإنما inkastoo wasiirka dadsan dalka Imaaraadku uu sheegay inaanay doonayn inay bedelaan qoyska xukuma dalka Qatar laakiin ay doonayaan inay bedelaan qaabka siyaasadeed oo ku socdo. قطر لجأت إلى تركيا. الرئيس رجب طيب أردوغان الحليف الوثيق جدا لأمير قطر ولآل ثاني ولدولة Qatar waxay leedahay saaxiib muhiim ah oo ah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo saaxiibtinimo dhow ay kala dhaxayso qoyska xukuumadda dalka Qatar iyo amiirka xilligan talada haya. أرسل أو وقع قرارا بإرسال 5000 جندي تركي إلى قطر. waxa aad ogtihiin inuu saxeexay in 5,000 oo askari oo dalka Turkiga ka socda loo diro wadanka Qatar وأيضا الدبابات والطائرات. kuwaasoo ku humaysan taangiyo iyo diyaarado. إيران أيضا أظهرت التضامن iyadoo dawladda Iiraanna ay si dhab ah ula midowday dalka Qatar oo u furtay dekedaheedii iyo eerboodadeeda oo dhan. القطري هذا الدعم التركي taageerada ay Qatar ka helayso Turkiga iyo Iiraanna يغير المعادلات في المنطقة. waxay noqonayaan arrin wax weyn ka bedesha صراع aragtidii laga filayay gobolka. السلمي أو في صراعه الإعلامي لا نعرف بالضبط، لكن ما نعرفه أن الأمور تسير نحو الأسوأ. waxa kaliya aynu hubnaa waxa weeye in arrintu maalinta ka dambaysa ay soo xumaanayso. لم تعد أزمة خليجية على الإطلاق، أزمة arrintuna xilligan ma aha dhibaato ama khilaaf dhex maraya dalalka khaliijka gudihiisa إقليمية ورفضت laakiin waxa uu noqday arrin khilaafkaasi mid heer gobol كلها. oo suna bedeli kara khilaaf caalamiya. لم أستغرب قرار هيئة أركان الجيش الروسي بأن الحرب في سوريا انتهت. lamana yaabayo runtii go'aanka ay soo saareen hoggaanka ciidamada ee dalka Ruushka kaasoo lagu sheegay in dagaalkii Suuriya uu dhamaaday. نعم انتهت لأن قطر لم تعد مشغولة في هذه الحرب. taa macnaheedu waxa weeye in Qatar mar haddii Qatar culays la saaray in dagaalka Suuriya uu dhamaaday. السعودية لم تعد مشغولة في الحرب في سوريا. Sacuudiga laftoodu mar haddaanay mashquul ku ahayn dagaalkaasi iyana waxa ay saameyn ku yeelanaysaa sii socitaan la'aanta dagaalka Suuriya. الآن مشغولين في بعض، فلذلك iyaga dhexdoodii ayaa isku mashquulsan. taa macnaheedu waxa weeye in Suuriya dagaalkii uu ka dhamaaday. وهذا ما يبرر أو هذا يعني نراه عندما رأينا الرئيس السوري بشار الأسد لابس الجينز ويتبختر في حي المزة. waxaynu arkaynay habeen hore madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad oo dhar jeans iska xiran oo dhex maraya magaalada Dimashq lafteeda. والأسواق هناك ويصافح البائعين والمتسوقين. oo dadka ganacsatada ah ay salaamayaan. ثقافية والابتسامة. haba jirto in ilaalo qarsoodiya la socoto. الأمور تتغير بسرعة. الآن الحرب ربما تنتقل من سوريا إلى الخليج. dagaalkuna xilligan waa mid suuragal ah in dagaalka ka dhamaaday Suuriya inuu noqdo mid loo soo raro dhanka khaliijka. هذه هي الحقيقة، وإذا اندلعت في الخليج ستتدخل فيها أطراف إقليمية. haddii uu dagaalkaasi khaliijka ka qarxana waxaa dhaba inay soo galayaan dhinacyada kale ee gobolka ku nool. ولا نعرف أين ستنتهي. mana ogin halka uu ku dhamaan doono dagaal noocaasi. هذه هي الحقيقة taasi waa xaqiiqada jirta أن ننبه إليها. waana ta dhabta aynu doonayno inaynu caddayno oo muujino. الصراع يتطور، الخلاف iska horimaadkaasi waa mid isa soo taraya. يتطور، ويعلم الله ماذا سيحدث. ilaahay baana og waxa dhici doona.